kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaatiin barnaamijka kulan wareedka raadiyo magan waxaana toddobaadkan barnaamijka idinkaga imaanaya magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya. waxaan idiin warami doonaa anigoo ah Maxamed Yacquub Suleymaan. qodobada ugu door koran barnaamijka kulan wareedka waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaare Roble madaxda beesha caalamka kala shiray xaaladda abaaraha dalka ka jira. guddiga doorashada koonfur galbeed oo ka hor yimid go'aanka lagu hakiyay kursiga Hope 204. madaxweynaha Hirshabelle iyo ku-xigeenkiisa oo ka shiray qaar ka mid ah kuraasta lagu muransan yahay ee tala magaalada Beledweyne. Fahad Yaasiin oo ku guuleystay qorshaha uu kaga hortagayo in lagula tartamo kursiga gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka. madaxweynaha Puntland oo la shiray ku-xigeenka wakiilka gaarka ee qaramada midoobay. iyo Mareykanka oo sheegay in qaar ka mid ah hogaamiyaasha Soomaalida wajihi doonaan xanibaad. sidoo kale waxaa xusid mudan oonan ka marnayn barnaamijka xubnaha xog sheeko iyo ciyaaraha. imisaad rafaadoo raadinaysee meel runta lagu hayo raadiyo magan baa rugteena timi rafiiqeeda noqo marulmaystiri noqo wariye maamula mareegtoo malaayiin qof maanka ku hayaan riyadaas rumowdow raadiyo magan baa kuu rumaysee orodo horogar raadiyo magan waxay ka haqabtiraysaa barashada saxaafadda qaybeeda kala duwan. haddaba kala xiriir barta Facebook ee raadiyo magan. magacaygu waa Maxamed Yacquub Suleymaan. waxaan idinkaga soo jeedinayaa kulan wareedka maanta magaalada Nairobi xarunta waddanka Kenya. aan u gadagalno barnaamijka. Ra'iisul Wasaare Roble madaxda beesha caalamka kala shiray xaaladda abaaraha dalka ka jira. Xasan Bashiir Ilkaasi ayaa eegay qodobkaasi. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa kala shiray beesha caalamka xaaladda abaaraha ee dalka ka jirta, taasi oo maraysa meel halis ah. Roble oo shir gudoominaya shirka gurmadka abaaraha degdega ah ayaa wakiilada beesha caalamka kala hadlay sidii gurmad loo gaarsiin lahaa dadka abaar saameysay. sidoo kale wuxuu ka dalbaday ra'iisul wasaaraha wakiilada beesha caalamka inay si degdeg ugu gurmadaan shacabka Soomaaliyeed ee abaartu hayso. ra'iisul wasaare oo orantii ka warbixiyay xaaladda abaarta ee dalka ka jirta ayaa sheegay in dalka ka jirta abaartii ugu darneyd ee dalka ka dhacda tan iyo abaartii macluusha ahayd sanadii 2012 saddex xiriirloobaad oo isxigay ayaa baaqday, taasi oo keentay in xoolihii iyo beerihii ay baaba'aan. waxay abaartu saameysay ku dhawaad 6.9 milyan oo qof, in ka badan 9.5 milyan oo xoolo, in ka badan 2.6 milyan oo qof oo wajahaysa biyo la'aan aad u daran. ku dhawaad nus milyan ayaa maalmihii lasoo dhaafay abaaro darteed deegaanadii uga barakacay, ayuu yiri ra'iisul wasaaraha oo ka warbixinayay xaaladda guud ee abaaraha. waxaa kale oo uu sheegay in haddii ay sidaan xaaladda dalka kusii socoto ay halis ugu jirto macluul. shirka gurmadka abaaraha oo ay qayb ka ahaayeen maanta wakiilada beesha caalamka ayaa waxa uu imaanaya xilli uu dalku ka jirto abaar daran, taasi oo saameysay dadka iyo dunyadaba. xukuumadda Soomaaliya ee hogaamiye Roble ayaa dhowr jeer ku baaqday in gacan laga geysto gurmadka abaaraha, wuxuuna shakhsi ahaan dadaal badan ugu bixiyay sidii kaalmo loo gaarsiin lahaa dadka ay abaar saameysay. guddiga doorashada koonfur galbeed oo ka hor yimid go'aanka lagu hakiyay kursiga Hope 204. Nuur Cabdullaahi ayaa Baydhabo inagu soo diray. guddiga doorashada koonfur galbeed ayaa maanta shaaciyay in la qabanayo doorashada kursiga uu shalay hakiyay guddoonka guddiga heer federaal ee FID. guddiga FID ayaa qoraal ka soo baxay shalay lagu sheegay in kursigaas ay cabashooyin isdaba joog ah ugu gudbiyeen malaaga guud iyo samadoonada beesha jaran oo beesha kursiga iska leh Hope 204. haddaba guddiga FID ee koonfur galbeed oo soo higinaya qoraal uu soo saaray madaxa guddiga doorashada FID ee ugu aabilsan koonfur galbeed Yuusuf Maxamed Khayr ayaa waxa uu sheegay in habraacyadii loo talagalay loo maray kursiga Hope 204 isla markaana la fasaxay doorashadiisa. xubnaha FID ayaa ku qoran koonfur galbeed ee hubinta kormeerida iyo fulinta heshiisyadii 17 Sebtembar iyo habraacyadii doorashada. waxa ay cadeynayaan in loo maray si uu u dhigayo habraacyada doorashada golaha shacabka, sidaas awgeedna yahay fasax in la qabto doorashada kursigaas waqtiga loo muday, ayaa lagu yiri qoraal uu soo saaray FID ee koonfur galbeed.
sidoo kale waxaa qoraal lagu wargelinayaan dhammaan reerka kursiga iska leh guddiga xulista ergada iyo musharaxiinta ku tartamaya kursiga xoob 204 in ay u diyaargaroobaan gobashada doorashada kursigaas ayaa lagu jiray qoraal soo baxay guddiga doorashooyinka koonfur galbeed Nuur Abdullaahi Cali warbaahinta Magan Baydhabo. madaxweynaha Hirshabelle ku-xigeenkiisa oo ka shiray qaar ka mid ah kuraasta lagu muransan yahay ee taalla magaalada Beledweyne. Shaafici Axmed Qooriyow ayaa qaadaa dhigay qodobkaasi. Wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in uu socdo kulan u dhaxeeyo madaxweynaha Hirshabelle iyo ku-xigeenkiisa uu ka socdo magaalada Beledweyne kaasoo looga hadlayo xiisada ka taagan magaaladaasi. wadahadallada u socda Cali Guudlaabe iyo Yuusuf Dabageed ayaa diiradda lagu saarayaa xal u helidda muranka ka dhashay doorashada gaar ahaan kuraasta taalla Beledweyne. ilo ku dhow kulanka ayaa inoo sheegay in labada nin ay ka wada xaajoonayaan maamulka kuraasta la isku hayo si xal looga gaaro dhamaystirka doorashada Beledweyne. sidoo kale madaxweynaha Hirshabelle iyo ku-xigeenkiisa ayaa isla meel dhigi doono xal u helidda khilaafka dhexqarxay ee ka dhashay in tartanka la daafuro ama kuraasta in loo xiro dad gaar ah taasoo xaalad cusub ka abuurtay magaalada Beledweyne. doorashada Beledweyne ayaa soo martay marxalado kala duwan maadaama ay ku soo aaday xilli ay magaaladaasi ka jirto xiisad la xiriirto dhismaha maamulka Hirshabelle. isjiidka hoggaanka sare ee Hirshabelle ayaa dib u dhigi kara doorashada maamulkaasi maadaama la joogo xilligii lagu ballamay in lagu soo idleeyo doorashada baarlamaanka. Shaafici Axmed Qooriyow warbaahinta Magan Beledweyne. Magan Radio Magane, Magan Radio Magan, Magan Radio Magane, Magan Radio Magane, Magan Radio Magane, 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 marwalba kadhago maqalkeeda la soco kadalco warbixino macluumaadka qarsooniyo kuwa muuqda intaba. waa hagaag weli waxaad la socotaan kulan wareedka Radio Magan. markaana waxaan soo qabanayaa dhanka iyo xubnaha barnaamijka xubinta xog sheeko waxaana maanta la diyaaray isla markaana Doobley ka soo diyaariyay wariye Jaamac Maxamed Siyaad guddoon haboon. kusoo dhawaada xubinta xog sheeko waxaana xubinta si joogto ah idinkugu soo gudbin doona macluumaadyo xiiso leh oo iskugu jira kuwa qarsoon iyo kooda muuqda. aan u gudbo xubinta xog sheeka waxaan ka hadli doonaa macluumaad ku aadan dunida cusub ee qiyaaliga kaasoo loo yaqaano metaverse. milkiilaha Facebook iyo dad kale badan waxay doonayaan inay isticmaalka internetka ay dadka wax ka bedelaan oo dadka ay u sameeyaan caalam qiyaali ah oo online ah oo ay dhex socon karaan, ku shiri karaan, ku ciyaari karaan, wax ku baran karaan oo qof boombulo camal ah oo adiga nafsadaada matalaya oo halkaasi ku dhex soconayo. waa filimaad adiga gurigaada joogtid ku dhex jirisid wuxuuna ganacsi weyn u noqon doonaa qaar badan oo idin ka mid ah. waxay u egtahay in halkaasi ka dhex samaysan doonaan hoola lagu kulmo ama la isku imaado oo soo gelitaanka ay qarash ku qaataan. qaar kale dukaamo online ah oo la dhexgeli kara ama la dhex socon kara shaqaale caadi ahna ay joogaan ayay samaysan doonaan. qaar kale idin ka mid ah hoolal xaflado ayay samaysan doonaan halkaasoo fanaaniinta iyo aqoonyahanada aad rabtaan ku casumi kartaan dadka soo galayna qarash caadi ah ay bixinayaan. qaar badan qorshayaal kala duwan oo ay caalamkaasi qiyaaliga ah si sax ah uga shaqaysan karaan ayay keensan doonaan. qaarna isticmaalayaal meesha ku damaashaada ay ahaan doonaan. mala socota hadda xilligan la joogo dad badan in dhul qiyaali ah internet korkiisa ka gataan, qaarna guryo iyo xarumo ganacsi iyo kuwa madadaalo ah oo qiyaali ah halkaasi ka iibsadaan. tusaale boos yar ama dhul yar oo online ah ayaa $3,000 ka bixinaysa kaasoo habidka aad lahaanaysid iibin kartid ama bakirayn kartid ama wixii aad doonaysid ka dhisan kartid. maalgelinta dhankaasi
ama dukaamadaasi waxay noqotay mid weyn waayo dad badan ayaa aaminsan hadda inay raqiis tahay muddo kadibna dhulkaas ay dad lacag badan kasii heli doonaan kiilo ahaan ama iib ahaanba. internetka aad hadda isticmaalo ma ahan kii 15 sano ka hor camal ahaa, sanadaha soo socdo ma ahaan doono internetka midka aan hadda naqaano ee aan isticmaalno oo kale. xubinta xog sheeko maanta waa iga inta aan kugu celiyo qaybaha barnaamijka inaga haray iyo wariye Maxamed Yacquub. mahadsanid jaamac. dhanka kale aan soo qabto xubinta ciyaaraha waxaana soo jeedinaya toddobaadkan Maxamed Yare Maxamed oo ka soo waramaya duleedka Muqdisho ee degmada Afgooye. ismaqal wacan waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha warbaahinta Magan. qodobada ugu xiisaha badan ee aan barnaamijkeena aan idinku soo gudbin doono waxa ka mid ah Xavi oo sheegay waxa ay Barcelona u baahan tahay si ay ugu guuleysto horyaalka La Liga xilli ciyaareedkan. tabanka xidig ee ugu goolasha badan kubadda cagta oo la soo saaray kadib markii Cristiano Ronaldo noqday xidiga ugu goolasha badan. Arsenal oo durba talaabo u qaaday saxiixa Mohamed Salah. tobabaraha kooxda Barcelona Xavi ayaa ka hadlay fursadda kooxdiisa ay ku guuleysan karto tartanka La Liga xilli ciyaareedkan. Barcelona ayaa guul weyn ka gaartay kooxda Osasuna kulan ka tirsan horyaalka La Liga Axadii, waxa ayna ku jirtaa kaalinta saddexaad iyaga oo 12 dhibcood ka dambeeya kooxda Real Madrid oo hogaaminaysa horyaalka. Xavi ayaa sheegay inay kooxdiisa Barcelona u baahan tahay in Real Madrid laga badiyo 3 ilaa 4 kulan si ay u guuleystaan horyaalka La Liga xilli ciyaareedkan. ku guuleysiga horyaalka La Liga way adag tahay xilli ciyaareedkan, wax rajo ah ma yeelan karno. waxaan u baahanahay in Real Madrid laga badiyo 3 ilaa 4 kulan, laakiin nasiib xumo kaliya waxaa laga badiyay 2 kulan oo kaliya iyo si raacay tobabare Xavi Hernandez. dhinaca kalena Cristiano Ronaldo ayaa noqday gool dhaliyaha ugu sareeya taariikhda kubadda cagta kadib markii 3 u dhaliyay Man United. kooxda Man United ayaa 3-2 kulan kaga badisay kooxda Tottenham Hotspur Sabtidii. weeraryahanka reer Portugal ayaa haatan dhaliyay 807 gool xirfadiisa ciyaareed, waxaana si rasmi ah looga tariyay dhaliyaha ugu sareeya taariikhda sida ku cad rikoorka FIFA. waxa uu dhaafay rikoor uu hore u dhigay halyeega reer Australia Joseph Pican kaasoo dhaliyay in ka badan 1500 oo gool xirfadiisa ciyaareed, balse kali 805 waxaa aqoonsaday FIFA. halyeega reer Brazil Romario ayaa ah ninka saddexaad ee ugu goolasha badan taariikhda isaga oo dhaliyay 774 gool xirfadiisa ciyaareed. xidiga kooxda PSG Lionel Messi ayaa haatan ku jira kaalinta afraad gool dhaliyaha isaga oo haatan dhaliyay 759 gool xirfadiisa ciyaareed. Cristiano Ronaldo 807 gool, Joseph Pican 805, Romario 772 gool, Lionel Messi 559 gool, Gareth Bale 757 gool. xidiga kooxda Liverpool ee Mohamed Salah ayaa diiday in uu heshiis u saxiixo kooxda kubadda cagta ee Liverpool, taasi oo shaki gelisay mustaqbalka kooxda Reds. Salah oo heshiiska Liverpool ee haatan uu dhici doono dhamaadka xilli ciyaareedka dambe ayaa la sheegay in uu u furan yahay inuu ku biiro kooxaha Premier League ah. Mohamed Salah ayaa doonaya in uu sii joogo Premier League, sidaas darteed waxa uu furan yahay in uu ku biiro kooxaha Premier League haddii uu heshiis cusub u saxiixi waayo kooxda Liverpool. sidii lagu soo xigtay shabakada Arsenal kooxda Arsenal ayaa la xiriirinaya wakiilka xidigani Remy Abs si ay ugu weydiistaan suurtagalnimada ay ku heli karaan xidiga reer Masar ee Mohamed Salah.
isla shabakada ayaa sheegtay in aanu jirin wax wadahadal ah laakiin ay Arsenal doonayso in ay wax badan ku ogaato haatan helitaanka reer Masar xidiga reer Masar ee uu shakiga ku jiro mustaqbalkiisa. Mikel Arteta ayaa la sheegay inuu taageero weyn u yahay xidiga reer Masar walibana diyaar u yahay inuu ku dhiso kooxdiisa xil ciyaareedka dambe haddii ay Liverpool iska iibinayso xidigan xagaagani. guud ahaan intaasi ayaan kasoo gabagabaynaya barnaamijkeena xubinta ciyaaraha. waxaa barnaamijkeeda la socodsiinay anigu Maxamed Yara ah. intaan barnaamij aankani aan ku kulmi doono waxaan idinka ka tagayaa sidaasiyo amaana Allah. waa tahay markaan aan u soo laabta dhanka iyo qodobada inoo harsan. Fahad Yaasiin oo ku guuleystay qorshe uu kaga hortagay in lagula tartamo kursiga gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka. waxaa faahfaahinaya wariye Aadan Cabdi Maxamed. Taliyaha amniga qaranka Soomaaliya Fahad Yaasiin ayaa qaaday tallaabo uu uga hortagay loolan xooggan oo la gelin lahaa isku dayga uu ku doonayo inuu noqdo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka. Fahad ayaa meesha ka saaray qorshe uu xildhibaan ku noqon lahaa taliyihii hore ee hay-adda NISO Jenaraal Bashiir Goobe, taas oo sare u qaaday rajadiisa guddoon. kursiga hoob 18 oo u sharaxnaa Bashiir Goobe ayaa loo asteeyay qof dumar ah, waxaana ku soo bixi doona qof uu isagoo keensaday, taas oo meesha ka saartay qorshihii xildhibaannimo ee Bashiir Goobe. kursigan ayaa loo asteeyay qof dumar ah, waxaana kaalin xooggan ku lahaa oo dadaal badan ku bixiyey Fahad Yaasiin si uu Bashiir Goobe u soo gelin golaha shacabka. loolanka kursiga gudoomiye ku-xigeenka koowaad ayaa mid xooggan ah oo ay ku loolami doonaan dhinacyo kala duwan, waxaana ay saadaasha koowaad ee kooxda farmaajo ay ku tijaabinayaan isku daygooda dib ugu soo laabashada xukunka. si kastaba ha ahaatee isku daygan oo kale ayaa lagu guuldareystay sanadkii 2017 markii Faarax Cabdiqaadir oo saaxiib lahaa madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud looga adkaaday doorashadii gudoomiye ku-xigeenka koowaad, taasoo muujisay in Xasan Sheekh Maxamuud aanu dib ugu soo laabanayn, sidaasna ay wax u dhaceen. Mareykanka ayaa sheegay in qaar ka mid ah hogaamiyaasha Soomaalida wajihi doonaan xanibaad, waxaana qodobkaas isha ku haya Maxamed Isaaq Xasan. safiirka dowladda Mareykanka ee Somaliland Andre ayaa sheegay in qaar ka mid ah hogaamiyaasha Soomaaliya ay beri wajihi doonaan cunaqabateyn haddii aan la dhammaystirin doorashada golaha shacabka. safiirka cusub ee la magacaabay oo waraysi siinayay mid ka mid ah warbaahinta gaarka loo leeyahay ayaa sheegay in dalkiisa uu qaadi doono tallaabo dheeraad ah haddii aan la ixtiraamin heshiiskii ay gaareen golaha wadatashiga qaran ee uu hogaamiyey ra-iisul wasaare Roble, kaasi oo lagu go'aamiyey in doorashada golaha shacabka lagu dhammaystiro ugu dambeyn 15 bishan oo u beegan maalinta beri ah. haddii waqtigii kama dambaysta ahaa ee lagu heshiiyey ee 15 bishan aan la ixtiraamin, markan waxaan mar kale liiska ku dari doonaa magacyo cusub oo ka mid ah dadka laga mamnuucay inay u safraan Mareykanka, ayuu yiri Danjire Andre. safiirka ayaa sheegay in soo gaartay xog ku saabsan in hogaamiyaasha Soomaaliya ay si degdeg ah u dardargeliyeen doorashada golaha shacabka markii ay soo baxday cunaqabateyn dhanka socdaalka ah ee Mareykanka. si kastaba ha ahaatee, diblomaasiga Mareykanka ma uusan sheegin magacyada hogaamiyaasha la saaray cunaqabateynyada dhanka safarka, balse taas beddelkeedii wuxuu sheegay in dareemi doonaan markay dalbadaan dalkugalka Mareykanka ama markii laga joojiyo fiisooyinkii horey ugu dalbanaa. ugu dambeyn, madaxweynaha Puntland oo la shiray ku-xigeenka wakiilka gaarka qaramada midoobay, sida uu ku dhamaystiriyay wariyaheena Cadnaan Cabdiraxmaan Saciid. Cadnaan. ku-xigeenka wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabsan Soomaaliya Anita Kiko Hubeho dhawaan booqatay magaalada Garowe ayaa madaxweyne Sii Cabdullaahi Deni saartay cadaadis xoogan oo ku saabsan doorashada. Anita ayaa waxaa safarka ku waliyay wakiilka gaarka ee gudoomiyaha golaha midowga Afrika Danjire Fariska Mudera iyo ku-xigeenka wakiilka Marwo Farona Lotan iyo safiirka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Danjire Tina Telman iyo wakiilka howlaha gaarka ee IGAD u qaabilsan Soomaaliya Mudane
ibraahim maxamed cabdi. Anita ayaa sheegtay in madaxweyne Dili iyo golaha wasiirada ay kala hadleen arrimo maxalli ah iyo kuwa heer qaran ah iyada oo si gaar ah diiradda loo saarayo doorashooyinka socda ee saameynta abaaraha ay ku yeelatay shacabka Soomaaliyeed iyo xoojinta jawaabaha qaramada midoobay. Waxaan kala hadalnay dardarta ay tahay in lagu gudbo marxaladda xigta ee doorashooyinka iyo tallaabooyinka loo baahan yahay si taas loo sameeyana waxaan soo dhaweynaynaa horumarka ay Puntland ka sameysay dhamaystirka doorashooyinka golaha shacabka ka hor waqtiga kama dambaysta ee 15 Maarso ayay tiri. Ilaa iyo hadda waxay Puntland dooratay 31 ka mid ah 37 kursi oo 5 ka mid yihiin dumar. Waxaan mar kale hoosta ka xariiqaynaa muhiimadda ay leedahay in gedi socodka noqdo mid loo dhan yahay waxaana bogaadinna dadaalada ee olaynta firfircoon ee Puntland ka socda ee ku aadan xiisiga mudada ugu yaraan 30% betirada haweenka doorashooyinka. Ku-xigeenka wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud u qaabsan qaramada midoobay Soomaaliya ayaa ugu dambeyntii sheegtay in muhiimadda ay tahay in la soo gabagabeeyo doorashooyinka dhammaan kuraasta golaha shacabka sida ugu dhaqsiyaha badan iyadoo loo xaqiijinayo fagaara siyaasadeedka oo cid kasta u furan si gedi socodka doorashooyinka lagu soo afmeero waqtigii lagu heshiiyey. Adnaan Shimralaaye, warbaahinta Magan. qodobkaasina waxa uu gunaanad u ahaa barnaamijkeena maanta. waxaana soo gaarnay dhammaadka kulan wareedka maanta. waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Yacquub Suleymaan. diyaarinta iyo farsamada iyo isku dubridka mahad ballaaran ha ka gaartee. waxaa igu caawiyey ustaadkayga qaaliga al-ustaad Ismaaciil. waxaana bahda Magan oo isku duuban aan idin leenahay nabadgelyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.